dadka uu soo ridanayo cudurka khatarta ee coronavirus wadanka Shiinaha ayaa la sheegayaa saacad walba inay tiro cusub ku kordhayso iyadoo sidoo kalena dadka dhimanaya ay tiro cusub ku kordhayso iyana. waxaa sidoo kale China ay sheegtay in iyana qaar ka mid ah dadka uu soo riday cudurkaasi laga daweeyay isbitaaladana ay ka baxeen. haddaba Soomaali fara badan ayaa ku nool wadanka Shiinaha kuwaas oo halka u tagay ganacsi iyo arrimo kale oo ay u badan yihiin arday wax ku barata halkaas. haddaba magaalada la yiraahdo Changhong ee ku taala waqooyiga wadanka Shiinaha ama waqooyi bari ee wadanka Shiinaha ayaa waxaa ku sugan arday Soomaaliyeed oo cabsi fara badan ay soo food saartay kadib markii la sheegay jaamacadihii halka ay ku dhiganayeen in la xiray, iyadoo mar dhow la sheegay jaamacaduhu inay isu bedeli doonaan in online-ka wax laga barto iyadoo laga baqayo isu imaatinka ardayda inay dhibaato markaasi sababto oo cudurku uu ku faafo deegaankaasi. haddaba khatartaasi iyo cabsida haysa ardada Soomaaliyeed ee ku sugan halkaas si aynu wax badan uga ogaano ayaa waxaanu toos uga wareysanaynaa magaalada Changhong ee wadanka Shiinaha. Dr. Dayib Cabdulqaadir Maxamuud ayaa waxa uu ka mid yahay ardayda dhinaca caafimaadka wax ku baranaysa magaaladaasi ku taala wadanka Shiinaha. haddaba waxaanu qadka si toos ah ugu wareysanaynaa Dayib Cabdulqaadir oo ka mid ah ardayda dhinaca caafimaadka wax ka barata wadanka Shiinaha. Dayib, marka hore nooga waran xaaladda waa sidee guud ahaan iyo midda ardada Soomaaliyeed u gaarka ah gobolkaas iyo gobolada kale. aad iyo aad baa u mahadsantahay Cabdiqaadir Cashir Nadaara. waa idin salaamayaa dhammaan adiga iyo asxaabta TV-ga kala shaqeysa iyo dhammaan Soomaalidaba. Soomaali badan ayaa dalkan joogta, waliba Soomaalida waxay u badan yihiin arday iyo ganacsato kuwaas oo u jooga waxbarasho iyo ganacsi ay u kala joogaan. nasiib wanaag ilaa haatan lama soo sheegin xanuunkan Soomaali uu ku dhacay ama uu asiibay, ilaa haatan lama soo sheegin, waa Ilaahay mahadiistaas. balse waxaa jira arday joogta magaalada Wuhan inay aad u soo cabanayeen oo noloshoodii saameyn xoog leh uu ku yeeshay maadaama xanuunkan la karantiilay magaaladaas oo la joojiyay isu socodkii iyo in dadkii ay magaalada dhex maraan oo adeegoodii wixii noloshii u baahnaayeen aysan wada helin. taas oo iyadana cabasho xoog leh ka jirtay safaaradii Shiinaha ee Soomaalida joogtay dadaal xoog leh iyada laftirkooda geliyeen sidii bal arrintaa wax ay uga qaban lahaayeen. isku dayo badan bay sameeyeen balse ilaa haatan ma jirto wax jawaab ah oo ardaydaasi si toos ah u gaartay. inkastoo macnaha maadaama karantiil uu jiro, karantiilkana waxa kaliya la sameyn karo ay tahay dawladda rabta inay la baxdo dadkooda waa inay diyaarad intay u soo dirsato ay dalkan u timaado ay kaxaysato. markay kaxaysana waa inay u heshaa meel ay ku karantiiliso. taasna dawladda Soomaalida ilaa haatan ma aqaan siday uga hirgelayso. waa tahay marka ilaa hadda ma jira wax dawo ah oo la leeyahay cudurkan waa loo helay oo dawladda Shiinuhu ay soo saartay ama dalal kaleba ay ka caawiyeen. aad iyo aad ilaa haatan lama hayo dawo rasmi ah oo xanuunkan la isku raacsan yahay oo standard noqotay. ilaa haatan lama hayo. waxaa jira tijaabooyin ku jira wadamada qaybtood inay soo saareen oo isku dayaan oo tartan laftirkeeda lagu jiro in sida loo soo saari lahaa dawooyin loogu soo saari lahaa xanuunkan. balse waxaa jirta dadkii xanuunkan uu qabay waxaa loo sameynayay in supportive care waxa la yiraahdo oo lala tacaalo iyo in calaamadihii dhibaatooyinka uu keensanayay in tacaalid lagula sameeyo. waxaa kaloo iyadana jirta oo tijaabo laftirkeeda ku jirta oo dadaal xoog leh la geliyay maadaama virus uu yahay xanuunkan. waxa keenaya inta badan viruska tallaal lagula tacaalo in tallaal la helo. taasna xoog badan baa la geliyay oo wadamada qaybtood waxay sheegayaan in bilaha ama isbuucyada soo socda ay rajeynayaan in la soo saaro tallaal si looga hortago dadka uusan xanuunkan gaarin maadaama xanuunkan uu aad u saameynayo dhaqaalihii iyo isu socodkii bulshada iyo caafimaadkiiba aad u khatar ugu jiro. waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. kaasi wuxuu ahaa
طيب عبد القادر محمود oo isagu kamid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka baranaysa wadanka Shiinaha oo aanu toos qadka ugu wareysanayna isagoo jooga halkaas